كلام أقانا أيضا أقانا قيس كذا أقانا هو يبقى أقانا فمل كذا أقانا رئيس الوزراء الصومالية wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambe ashii waa runtiis aan mareena uu og yahay waa runtiis waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray xataa waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmedobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن صاحبي halkani waa bilicsan media aydan kugu soo gudban wararka Soomaalida kuwooda ugu xiisaha badan saaxiibayaal waxaan idin ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartid haddii aad nala joogtana waan kaaga mahadcelinaynaa la joogaaga mahadsanid halkani waxaan rabnaa caawa idinkula wadaagno warbixin aan uga hadlayno wareysi lala yeeshay markii ugu horeysay 5 sano kadib taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ahna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumaddiisii ayaa wareysi xasaasi ah uu bixiyay ama uu siiyay wariyaha ka howlgala warbaahinada madaxa bannaan oo lagu magacaabo Cabduqaadir Faarax ayaa uu wareysi dhinacyo badan taabanaya ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin kiiska Ikraan Tahliil Warsame oo ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka saaxiib mar walba waxaan ka codsanaynaa subscribe noo saartiin la joogina waa muhiim ay inoo tahay mahadsanid haddii aynu u guda galno wareysi xasaasi ah ama xiiso leh oo lala yeeshay taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka mid ahaa raggii ugu awoodda badnaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumaddii farmaajo oo dhanka taliyaha nabad sugidda hayay muddo haddana markii ugu dambeysay ahaa la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa ka hadlay kiiska gabadhii ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ikraan Tahliil oo la la'sanaa muddo 1 sano iyo bar ka hor oo la sheegay ugu dambeyn hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay sheegtay in ay dileen ururka Al-Shabaab dhanka kale waxa uu beeniyay in dowladda Soomaaliya ay ku maqan tahay gabadhaasi wareysiga waxa lagu weydiiyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in uu wax ka ogaa kiiskaasi iyo arinta ay tahay isagoo sheegay in gabadha ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo hooyadeedba uu aad u yaqaano gabadhana ay ahayd gabar hay'adda sirdoonka qaranka ka mid ahayd xubnaha ugu firfircoon sidoo kale waxaa su'aal laga weydiiyay xiriirka asaga haatan u dhaxeeya maadaama uu xukunkii ama taladii dalka uu ka baxay oo uusan doorashadii aysan ku guuleysan xisbigiisa oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wadanka uu madaxweyne ka ahaa inta uu asagana xubin ka ahaa hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ayaa la weydiiyay in hadda uu xiriir la leeyahay dowladda Qatar waxa uu sheegay in dowladda Qatar uusan xiriir toos hadda la lahayn maadaama uu asaga uu la macaamili jiray dowladdaasi asaga oo xambaarsan Soomaaliya aysan ahayn shakhsiyan uu la macaamili jiray oo una iska bariyeelay in xiriirka Soomaaliya iyo Qatar ay ahayd mid ku saleysan rabitaan qofeed dhanka kale mar su'aal laga weydiiyay kiiska Ikraan Tahliil ayaa uu sheegay mar laga weydiiyay ayaa weydiiyay su'aal ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay in uu og yahay mise yaqaano dadkii ka dambeeyay dilkii gabadhii ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegay in uu og yahay waa runtiis balse uusan cadeynin dadka ka dambeeyay kiiskaasi ama dilkaasi fuliyay كلام أقانا أيضا أقانا قيس كذا أقانا هو يبقى أقانا فمل كذا أقانا رئيس الوزراء الصومالية wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambe ashii waa runtiis aan mareena uu og yahay waa runtiis waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray xataa waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmedobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya أنت نحن مثلا جبل بنتلا إنك خسرت حريرك جبل أنا سميت واجس مدحويني حسن شيخ محمود ما هالصلاة أقول ما لها ميقانو أطوع أقول لها أنا ومقعابين وحن ربعنا نقول شيء سرقال كنا بسويد الصومالي كترسن السر قرن لو ذا قلت ليها أسبوع لما مقعابي وقف سرتي قرن كأوديبية قف كي لقي إلى النهاية هذا انستوشن معها هي قد معها قف معها هذا محيي لسه حريرها دول Soomaaliya madax ka dal hay'adna wasuugadeed baa indho ah jiritaankeeda mas'uul u ah muuqaalkeeda u ah waa tahay saaxiibayaal dhanka kale Brit waxa la filayaa in uu qabsoomo munaasabad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galayaan madaxweynayaal wasiiro iyo
wasiiro arrimo dibadeed diblomaasiyiin caalami ah oo ka kala socda dunida dacaladeeda iyo gobolkaba ayaa soo gaari doona magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo berito la filayo in ay qabsoonto ama dhacdo xaleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo loo doortay madaxweynaha dalka 15 bishii May ee soo dhaaftay sidoo kale waxa wafuud ka kala imaan doona wadamada dariska la ah sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Eritrea iyo wadamo badan oo qaaradda Afrika ah iyo caalamka iyo intooda kaleba berita ayaana la filayaa in ay qabsoonto ay ka dhacdo xaruntii meeshii lagu doortay xarunta Afisiyoni ama teendhada Afisiyoni dhanka kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shacabka Soomaaliyeed la hadlay ayaa uga warbixiyay in maalinta berita ah guud ahaan dalka ama magaalada Muqdisho ay ka dhici doonto bandow oo isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka ay yaraan doonaan dhanka kale wuxuu hay'adaha amniga qaranka dalka uu ku wargeliyay in ay ka shaqeeyaan amniga dalka gaar ahaan caasimadda dhanka kale wuxuu sheegay sidoo kale in ay ciidanka booliiska ama hay'adaha u qaabilsan arrimaha degdega ama ambulance uu sheegay in ay heegan buuxa ku jiraan maadaama shacabka Soomaaliyeed ay berito dhaqdhaqaaqooda la xadidi doono bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib waxaa mahad oo dhan iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo dhameeyay howlihii doorashada heerarkeedii kala duwanaa waxaan rabaa in aan uga mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidii ay noo garab istaageen ducadii iyo dulqaadkii ay muujiyeen intii ay socotay hawshii doorashada dalka oo ahayd mid aad u dhib badnayd walaalayaal waxaan maanta mar kale hortiina u imid inaan idinla wadaago fariin si gaar ah u qusayso shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda walaalayaal 9 bisha June oo ku beegan berri oo khamiis ah caasimadda waxa ay martigelin doontaa madaxweynayaal ra'iisul wasaareyaal iyo mas'uuliyiin sarsare iyo wafuud caalami ah oo kala duwan oo ka imaanaya dhammaan daafaha kala duwan ee caalamka kuwaas oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud haddaba si loo xoojiyo amniga martida heerkeeda sareeya ee dalka imaanaya waxa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimadda lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10 fiidnimo ilaa berri galab 5 galabnimo hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo sidaa darteed waxaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan Muqdisho si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta ayna ciidamada ammaanku garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada Muqdisho ciidamada amniga iyagoo waajibaadkooda gudanaya waxa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee degdega ah sidoo kale taliska ciidamada booliiska waxa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka degdega ah si ay goobaha caafimaadka u geeyaan dadka ay la soo darsaan xaaladaha caafimaad ee aad u daran mar kale waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dulqaadkiina iyo insha Allah ilaahina subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu caleemasaarkaas noogu dhameeyo si nabadgelyo ah saaxiibayaal halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamij iyo warbixino aan ka hayna dalkii Soomaaliya iyo wareysi la yeeshay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo markiisii ugu horeysay wareysi madax banaan ah bixiyo ayaa sheegay in arrimo badan oo xasaasi ah ka hadlay tan iyo kulantideena tan xigta waxaa idin leeyahay sidaas iyo amaano Allah